gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Maxamuud Cabdullaahi Socdaal ayaa xaflad soo dhaweyn iyo dhiirigelin u sameeyay ciyaartooyda degmadaasi oo lagu wado in Jimcaha ay si rasmi ah u furaan tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir. Kaaraan ayaa difaacanaysa tartankan kadib markii sanadkii la soo dhaafay ay ka qaadeen dhigooda Goboley, waxaana lagu wadaa in Jimcaha ay kulan adag la ciyaaraan xidigaha degmada Dharkeenley. haddaba iyadoo markaasi uu ku soo foodlaya kulan adag, gudoomiyaha degmadaasi Maxamuud Cabdullaahi Socdaal ayaa ciyaartooyda u sameeyay xafladda heer sare oo soo dhaweyn iyo dhiirigelin oo ku aadan in ay iyagu markaasi koobka difaacdaan guulana keenaan. waxaa goobta ku sugnaa mas'uuliyiin kala duwan oo ay qayb ka yihiin maamulka degmada Kaaraan, xildhibaano, wasiiro iyo marti sharaf kale kuwa ayagoo goobjoog u ah xafladda soo dhaweynta iyo dhiirigelinta loo sameeyay ciyaartooyda. waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Kaaraan Maxamuud Cabdullaahi Socdaal, xildhibaan Xaadoole iyo waliba xildhibaan Cadnaan, sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan Daawo Suusow iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Aamino Xuseen Cali. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo casho sharaftan lagu dhiirigelinayo ciyaartooyda degmada Kaaraan. kooxdii hore ee degmada Kaaraan guusha u soo hoysay Kaaraan markii ugu horeysay ay koobka qaadeen nimankii guusha soo hooyay in maanta gudoomiyaha cusub ee gudoomiye Socdaal, gudoomiye Maxamuud Cabdullaahi Socdaal oo ugu sameeyay meeshan casho waa ku faraxsan inaan ka soo qayb galo. gudoomiye aniga xildhibaanka caasimadda nahay gudoomiyaasha degmooyinka oo dhammaan eedayaya Kaaraan waa degan laakiin oday hadduu igaar isku faca dhalo oo habruusho badan inta aroos igaar ka wada dhalo hadday igaartiisa legdamayaan wuxuu jecel yahay inuu dhexdhexaad ka noqdo. horta aniga hadda Kaaraan maadaama aan deganahay waxaan rabaa lama dibi waxaa la yidhahday isirtiisa halka xaggaaga soo xigo inuu dhinaca dhulka inuu xoog badsaa jeceshahay. halkan waxaan u joognaa caawa inaan dhiirigelinno tiimka degmada Kaaraan ee ah guulaystayaashii sanadka hore. dheedheel kuma imaato guusha kubadda cagta sideedaba, waxay u baahan tahay dadaal iyo dhiirigelin mar kasta in lala dul taagnaado sidii sanadka hore dhacdo kale. haddiinan garab iyo gaashaan midna loo noqon maanta farxadda iyo hidadiilada ku jirta iyo rajaynta inay rajeeyaan koob kale inay halkan keenaan ma yeelan lahayn. taasna waxay ku timaaday isku duubnimada dhammaan iyadoon la kala qaadeen dadka reer Kaaraan. saan haddaan sii ahaano oo saan iskugu sii duubnaano waxaa dhacaysa mar labaad koobka in halkan la keeno. horta ani degmadan ma deganin, dad gabdhahan jeclaha degan oo aad ii soo jiitay. ani Wardhiigleen ka imaaday, degmadan gabdha jeclaysiya daraadooda u imaaday. tan aan rabo inaan sheego waxaa ka mid ah guusha ilaahay baa iska leh. tookada hore guusha waa qaadeen, tookadan horta ilaahay guusha ha idin siiyo. aniga ka wasiir ahaan, ka xildhibaan ahaan, hiil iyo hoobo saacadda laga bilaabo Wardhiigle ma taageerayo, idinkaa idin taageeraya. garoonka idinku taageeraa, dhaqaal waa idinku taageeraynaa, wax alla wixii markaas leega baahdo ayaan diyaar ahay. أنا ديجان كان كترسنا لكن ديجان كان كترسنا هاي وحان مسؤول كهاي وزارة الدليل إسبورتيga أنا مثلاي Kaaraan سأنا وحكسدا يسي كلام بقولي أنا لا حاول وحيرة أنا وحان هاي أذكي عاصمة ده أنا ما مدي إسبورتيga أنا هاي لكن وحن جعل أنا ما مدي المهية ده ورت هاي ده halkooy jeceshahay way riixdaa diyaar waxaan jeclahay degmada Kaaraan wiligeed inay guusha qaado. waxaan rabaa inaan hadal kuma dheeraan doono, inaan idin dhiirigeliyo, inaan idin soo dhaweeyo. kulay ballanqaade fara badan way jiri doontaa, dhiirigelin fara badan way jiri doonaan. sanadkii hore sanadka qurux badan aan joognaa, maalmihii hore maalmo ka qurux badan aan joognaa. Kaaraan hore ay u soconaysaa. Kaaraan dib uma naqanayso. koobkan meeshuu yaali doonaa. sanadkan kaliya maana sanado badan oo guri aan yaali doonaa aduu Ilaahay yiraahdo. intaas kadib
caawa waxaa rabaa inaan ballan qaado dhalinyarada ciyaartooydeyda wiilashayda walaalahay kulan kasto aa soo badisaan ballanqaadaa jiri doono kulanka koowaad $3,000 aamiiskeediin saar kulan kastana way kordhaysaa hadduu ilaahay yiraahdo moobilkaaga ka daawo ciyaaro iyo filimaan adigoo adeegsanaya abka Daawo TV fadlan la xiriir lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda